بسم الله الرحمن الرحيم. شالي مقالة بورما سيدا عن لوضة صعنا وحسن عي مظاهرات آدوية كاسو اي اسكيغو ريمادين ددوينة قدودسان iyo ciidanka ammaanka dadweynahan ayaa waxa ay ka cabanayeen ama ay waxa weeyaan ay diidanayeen in rag muwaadiniin ah oo ka soo jeeda goboladan Awdal iyo Salal gaar ahaan degmada Boorama ay shiki soo kala dhex galay oo ciidamada ammaanka ama sirdoonka oo Itoobiyaano joogay in loo dhiibayo sida awadeed markaa waxa dhacday cabaar 11 markii ahayd anagoo ku sugan wariyaasha ka howlgala goboladan Awdal iyo Salal dhamaantood oo ku sugan hotelka weyn ee Rays ayaa waxa halka ka socday shir jirayd oo ay qabanayeen salaadiinta gobolada Awdal iyo Salal kaas oo ay kaga hadlayeen arrimahan ka soo cusboonaaday goboladan Awdal iyo Salal markii shirkii jirayd dhamaaday ayaa waxa hotel Rays soo galay qaar kamid ah saraakiisha ciidamada saraakiil muxuu ahaa Itoobiyana iyo barasabka Awbare oo iyagna halkan ku soo degay hotel Rays markii ay soo degeen waxa ay la yeesheen shir ciidamada salaadiinta iyo cidii meesha joogtay waxay ka wada hadleen waxa weeye sidii loo xoojin lahaa ammaanka labada dawladood ama xuduudaha u dhaxeeya Somaliland iyo Ethiopia markii arrinkii dhamaaday ayaa halka waxa ku sugnaa barasabka gobolka Awdal taliyaha gobolka Awdal iyo ciidamada sirdoonka qaranka Somaliland oo horgacay Axmed Cabdulle waxa kale oo halka jirtay markii arrimuhu halka ay marayeen ayaa waxa anagoo Rays ku sugan ayaa waxa dhacday har rasaasa isla markiiba waxa lala soo hadlay taliyaashii booliska iyo barasabkii iyo taliyaashii oo leeyahay waxa ka socota magaaladii dhexdeedii shaqaaqo anaga oo kamid ah wariyaashii meesha goobjoog ku ahayd baan isla waqtigiiba waxaan soo raacnay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Daahir Cabdalla gaarigiisii iyo isagiiba waxaan soo marnay magaalada Boorama dhexdeeda waxaan ku horeynay saldhigga booliska runtii saldhigga booliska waxaan ku aragnay xaalad aan is oran karo jahwareer waxa halka ku sugnaa boolis tira badan iyo ciidanka ammaanka iyo kuwa sirdoonka dhamaantood kuwaas oo ka jaawareersanaa wixii shalay meesha ka dhacay iyagoo jaawareersan waqtigaas markii barasabku markaa halkii aan tagnay ayaa waxa dhacday in waraysi ay siiyeen taliyaashii meesha joogay iyo arrimuhu soo dhaceen waqtiga aan tagnay waxa weeye waxa afaafka hore booliska joogay dadweyne aad u fara badan kuwaas oo aad u caraysnaa oo hadallo ku dhawaaqayay looma dhiibi karo muwaadin ama muwaadiniin looma dhiibi karo rag cadow ah muwaadin aan waxba galabsan cidii galabsatayna la iska sii daayay waa hadallada ay ku dhawaaqayeen dadweynuhu maaha in loo gudbiyo dowladda ajnabi oo jaal Itoobiyaan annaga dadka nahay dadka marka hadda dadka qowmka waxaanu ka biirtiisanahay dadka la gudbinayo oo loo dhiibay Itoobiyaan gobolka Soomaaliland ku qaaday wuxuu dambi leeyahay ragaas laakiin gobolka Awdal hadda nahay ragayga Itoobiyaan looma dhiibayo looma la dhiibi doono marka shacabkii marka halka joogay dowladda waxa la hadlay barasabka gobolka Awdal Maxamed Daahir Cabdulle nasiib darro laakiin way waxba ka maqli waayeen dib u soo noqday markii halkii aan tagnay ayaa waxaan waraysi la yeelanay goobjoogayaal meesha joogay oo iyo waqtigii arrimaha xasaasiga ah ee ragga maxaabiista meesha ku jiray lala baxsanayay waxa ay noo sheegeen arrinka meesha ka dhacay inuu ahaa arrin aad iyo aad u la yaab badan kaasoo dadkii meesha joogay ay yidhaahdeen wuxuu ahaa mid aad looga soo shaqeeyey sidaan u aragnay waxa ay sheegeen in gaari nooca loo yaqaano seerfta ah iyo gaari kale oo bas ay meesha soo istaageen intaan maxaabiista banaanka loo soo saarin oo gaari kale oo gaariyaashan Toyota Land Cruiser ka la yiraahdo lagu wado dusha banaan markii markaa banaanka intaan soo bixiyay gaarigu xagga horeba uu u soo baxay ayaa gaarigan seerfta madowda lagu dhaqaajiyay sida ay noo sheegeen goobjoogayaal madax banaan oo halka joogay dadweynaha kamid ah gaariga seerfta markii speed xooga lagu dhaqaajiyay waxa afka lagu daray gaarigii kale ee ay maxaabiista saarnaayeen booliska kabacdi waxa dhacday marka ageegax iyo fariir iyo dadkii dadweynihii meesha joogay ciidankii booliska dhammaan ay nin walba wuxuu yiri naftaada ilaaha kula faki waxaana loo haystay gaarigan inuu gaari qarxay yahay kabacdi
maxaabiistii laba kamida waa sida ay noo sheegeen baa ka daadegay orday waxaa markii dambe bilaabmay in booliskiina ay difaac galaan oo ay arkaan markii gaarigiina gaari uuna qarxayn ahayn waxaa dhacday markaa in ay qorye soo qaateen dadweynihii la soo baxeen dadweynihii iyagiibaa isfara saaray maxaabiistiina sidaas ayay ku fakatay markaa sidaa ay noo sheegeen raggii markaa operationka sameynayeen laftigooduna way la fakadeen waa sidaan ku helaynay goobjoogayaasha wixii intii ka dambeeyay waxaa dhacday markaa in ciidankii boolisku ay howlgal xooga sameeyeen shacabkii ay isku dayeen inay meesha ka kaxeeyaan shacabkiina ay diidanayeen iyaga oo lahaa muxuu ahaa waxaanu diidanahay in cid loo dhiibo kamida muwaadin reer awdala ama somalilana cid aanan muxuu ahaa dawladooda ahayn ciddii markaa wixii dembi ay galeen raggani bay dadka ku andacoonayeen waa in lagu maxkamadeeya gobolada ay kasoo jeedaan ama gaar ahaan somalilandba laakiin anagu ma ogelin bay lahaayeen dadkaasay ku dhawaaqayeen wixii intii ka dambeysay cabaana markay ahayd 12 iyo barkii wixii ka dambeeyey ayay rasaastu hadbeeshay waxaan halkaa ku dhaawacmay 3 qof ugu yaraan 3 qof oo mid kamida dhaawacaasi uu culus yahay oo hunguriga ay ka dhex martay isagoo meel iska fadhiya xabad wiifta ayay ahayd dadkan meesha ku wada dhaawacmeen xabadaas ayaa ku wada dhacday markii halkaa marayso ayaa wafdigii joogay ee Etoobiyaanka ahaa ee horkacayay barasaabka ama duqa magaalada Awbare iyo wafdigii hogaaminayay ciidanka Etoobiyaanka ahaa sida ay noo sheegeen ay magaalada ka baxeen iyagoo amaankooda si wanaagsan loo sugayo ilaa ay ku noqdeen magaalada Awbare horta xaaladda guud ahaan shalay dhacday saasay ahayd waxaana la oran karaa waxay ahayd mid aada iyo aad u taabatay dadweynaha kasoo jeeda goboladan awdal gaar ahaan degmada Boorama iyagoo aada uga xariisnaa sida arrimuhu dhacayeen dhinac kale marka laga eegana dadweynaha waxaa lagu soo dhex tuuray ilaa imkanaan la garanayn lagu soo dhex tuuray dadkan waa la qaadayaa laakiin weli wax xaqiijinaya hubaal ah oo la hayaa ma jirto wararkii shalay mudaharaadkii ka dhacay magaalada Boorama kulleyba sidaasay ahaayeen wax kaloo dhaawac iyo khasaare dhacayna ma jirto